السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقائق أميلو البوتشوكتان سو دوادا أيان بالله رمضان كريم سكوسو نقشو وناكسن جنة كدقة داونا سن وفادما فيلسن قف كيدن لها ديان وانا وفادما فيلسن خير بدن أيان دي رجينيا بش إيا برواقو هذا دوري نولو جوكتي واد مهدسنتاي هذا نوتي من سو دو أيان كلنا هاي قصدينا maanta waxay ku saabsan tahay aabo ayay ku saabsan tahay iyo gabadhiisa aabo iyo gabadhiisa ayay qisadan dhex martay aabahan markii uu guursanayay ee hore dhalinyaro ayuu ahaa nin yar ayuu ahaa madeetana adiga awlaad badan baa ilaahay ku irsaaqay isaga iyo xaaskiisiba gabadhii markay uurkii koobaad yeelatay ayuu wuxuu ku dhahay walaalay aniga ma rabo inaad ii dhasho gabadh waxaan rabaa inaad wiil ii dhasho dabcan gabadh iyo wiilba ilaahay ayaa haya dadka qaar wiilal bas uu siiyaa qaar basna gabdho ayuu siiyaa qaarna wiilal iyo gabdho waa siiyaa dadka qaarna de waxaa ma siiya ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa awoodiisa iska leh deetana gabadhii waxay dhashay gabadh markay gabadh dhashay ayay haddana gabadh kala dhashay isaga markastana dardaarankiisa waxaa waaye gabadh ma rabi wiil ayaa raba deetana gabadhii markay 5 gabdhood marinayso ayay waxay dhashay ayuu wuxuu u dhahay haddii aad gabadh damba dhasho ogow haddee waan kala faataxaysanaynaa oo waynu kala tegi dabcan gabadhii kurbo ayay ku noqotay arrintiina way u cuntami weyday maadaama ay hooyo ahayd oo dee carruur yarar haysatay oo reer meel iska degan ahaa sheekadii adigu i qaadan weyday dabcan waxay ahaataba haddana cunug kale ayay dhashay gabadh kale oo 6aad ayay dhashay hooyadii markay gabadh 6aad dhashay ayuu wuxuu yidhi haddii aad rabto inaad reerkaaga sii haysato waa inaad gabadha yartaa aniga isiisaa dabcan hooyo cunugeeda laga qaaday aad iyo xanuun badan tahay haddana saasay tahay way siisay cunugii gabadhii yarayd aabaheed ayay siisay aabaheed gabadhii yarayd salaada subax ayuu qaaday deetana wuxuu geeyay kadinka masaajidka markuu geeyey ayuu dhigay asaga dabcan wuxuu u geeyay halkaas inuu arko bal qof uun gabadha yar qaata oo maxaa la dhihi jiray meeshaas cunug yar oo masaajid hortii lasoo dhigay inuu qof uun dhaho bal anaa dar ilaahay cunugana korinayo oo qaadanayo taas ayuu adigu meesha ka rabay dabcan waa qadar rabbiya gabadhii cuduma qaadanin waana cunug yar oo hadda dhashay iska soo celiyay hooyadeed ayuu u keenay deetana wuxuu ku yidhi gabadhaada iska hayso gabadhi ayaa gabadheeseeda ku haysatay mana uusan furin gabadheeda u soo celiyay adigu sidii bay ku wada joogeen hooyadii haddana adigu waxay dhashay wiil ayay dhashay dabcan isaga wiil ayuu rabay muxuuna haystaa 5 gabdhood wiil markay dhashay ayaa waxaa ka dhimatay gabadhii gabdhaha ugu weyneyd curadda ahayd ayaa ka dhimatay deetana adiga gabadhii haddana wiil kale dhashay 5 wiil ayay u dhashay 5 wiil markay u dhashay sanad kasta oo ay wiil dhashay 5 wiil ay dhasho waxaa ka dhimanaysay gabadh gabdhaheedii ka mid ah waa 5tii hore ee gabdhaha ahaa ay dhashay 5 gabdhood ayaa ka dhintay 5 wiil iyo gabadhii masaajidka la geeyey 6daas ayaa soo hadhay hooyadii markii dambe adiga way iska xanuunsatay siday u xanuunsanaysana tii rabbi ayaa u timid allah u naxariisto way dhimatay markii ay geeriyootay waxaa soo hadhay 6dii carruurta ahayd 5tii wiil iyo gabadhii iyo aabahood aabihii marka wuxuu howlgalay dee siduu carruurtii maadaama yaryarta uu koriyo carruurtii ayuu iska korsaday wuxuu la rafaadaba adiga alxamdulilah way u koreen hadday u koreen wiilashiisi waa akhristeen waa waaweynaadeen waa la kala danaystay yaa soo hadhay gabadhii iyo aabaheed ayaa guriga ku soo hadhay aabihii wuu waayeelay wuuna xanuunsaday marka waxay noqotay inay gabadhiisu haysato gabadhiisa markastoo lasoo doonana waxay sheegan jirtay cilad ayay sheegan jirtay waxay dhihi jirtay aniga akhriska waxbaa iiga dhiman aniga hadda sidan ma aha ma guursan karo adoo kolba duruuf unbay sheeganaysay markaa u taagan duruufaha dhan waxay u sheeganaysay darteed aabaheed inay cilada uga tagta ayay diidaysay
marka aabaheed ayay iska haysatay gabadhii. aabaheed waxay haysataba aabaheed aad ayuu u waayeelay. aabaheed gabadha markaas wuxuu dhihi jiray aabo i cafi, aabo i cafi. aabaheed markaas wuxuu ka shalaytoon jiray sidii uu markii ay dhalatay uu gabadha yarta rabay inuu tuuro oo geed hadduu qofku rabo inuu geed haddaad maanta damcada inaad goysid ood salka ka jari rabtid geedka gunta ka jartid dee berri waxaad hadhsata geedkuna guri kuugu horyaallo qorax kulula imaato dee waxaad hadhsata mar dabcan adiga geedkii aad goyn kari weyday haddaad harhkiisa u baahato waxaad dhihi lahayd uun geedkan haddaan maalintii jari lahaa maantan harkan kama aanay heleen oo talaa iseegi lahayd. marka dabcan hadduusan gabadhiisa isagu uusan tuuri lahayn oo uusan gabadhiisa maxaa dhihi jira iska fogeyn lahayn kama uusan shalaytoodeen caruurtiisa ayay ka mid ahaan lahayd cuqdadna kuma aysa hayseen. laakiin isaga wuxuu ka xumaanayay gabadhiisa inuu tuuro oo gabadha yarta ah uu sidii micnaha markay dhalatay uusan u rabin iyo sidii markii ay weynaatay iyadii u mutay oo wiilashii uu ku taamayay uu dhahayay wiil baan rabaa wiilashiisii ay duurka iska kala galeen oo nin kasta ninkii guursaday waa guursaday kii shaqo iyo meel kale aadayna wuu aaday gurigii dabcan isaga iyo waxaa looga tegay gabadhii maadaama ay hooyadiina dhimatay ilaa u naxariisto. marka adiga dabcan gabadhiisii shalay uu rabay inuu tuuro ayuu maanta ku antifaacay oo ilaahay uga dhigay baariyad oo ilaahay uga dhigay gabadh wanaagsan oo ilaahay uga dhigay gabadhii aabaheed haysan lahayd. marka dabcan waxa u geeyay isaga waxay ahayd jaahilnimo ayaa u geysay laakiin markii dambe uu ka toobad keenay wuuna ka shalaytooday arrintaa aad ayuu uga xumaaday. dabcan qisadaas aad ayay ii taabatay waxayna ku badan tahay soomaalida dad badan ayaad arkaysaa oo qisadaas maadaamoyna hadda horta ayna saa u badnayn oo dee hadda dadku aad wuxuu fahmeen laakiin maamooyinka hore markay ka sheekeeyaan qisooyin badan oo kuwaasu eg ayaa dhacay oo dabcan anaga soomaalida haddaan aad ayay noogu badan